14 qof oo ka mid ahaayeen caruur ka soo jeeda 3 qoys oo ehel dhow isku ahaayeen ayaa habeen hore ku geeriyooday madfac ku habsaday guri ay rasaasta kaga gambanayeen ee ay ku sugnaayeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Arrintan ayaa ka dhacday xilli uu dagaal dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ka amar qaata maamulka Jubbaland. 6 qof oo isla madfacaas ku dhaawacmay oo loo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa mid ka mid ah oo markii dambe dhaawacii soo gaaray u geeriyooday, taas oo tirada dhimashada qoyska ka dhigaysa 15 qof. Wariyaha u shaqeeya idaacadda VOA Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa la xiriirtay aabe ku waayay 5 caruur oo asiga dhalay. Saddexdan qoys oo u badnaa caruur iyo dumar ayaa markii abaara ay ahayd 1:00 habeenimo amaba 7 saac xilliga Soomaaliya sida ay ii sheegeen ehelada. Rasaasta marka ay ka bilaabatay magaalada waxay isugu tagaan hal guri oo sar ah maadaama ay ku noolaayeen guryo cariish ah oo intooda badan ay nafta ku simi weyso inay ku sii jiraan hubka darandooriga u dhacaya awgeed. Cabdiweli Maxamed Turmaag oo ah aabaha dhalay 5 caruur ah wuxuu ii sheegay in ilmihiisa ka dhintay ay ahaayeen 3 asaga uu dhalay iyo 2 waalid uu u yahay oo walaalihiis ay dhaleen kuwaas oo la noolaa. Walaalaniga dadka meesha ku dhintay oo dhan way dhinteen, dad wada ehelay ahaayeen, laakiin sheer Cabdiweli 5 qof waa ka dhimatay, 3 qof oo kamid ah waa ilmo Cabdiweli, 2 qof oo kalena waa dad aan waalid u ahayn, mid aftaan ah mid adeer baan ah. Dad dumar oo waaweyn oo hooyadii laba ahaa, rag waaweyn oo qaangaar ah nin baa ahaa, kala waxay ahaayeen caruur isugu jira gabdho iyo wiilal. Dadka guriga soo gabaadsaday waxa ay ka koobnaayeen 22 qof. Cabdiweli Maxamed waxa aan weydiiyay sida dadkan ay isugu yimaadeen goobtani markii hore halka guriga ah iyo xaalka sida uu ahaa madfaca ka hor. Waxaan ahayn dad derisna ah ehelna ah oo 3 qoys ka kooban, qoyskayga oo guriga deganaa iyo 2 qoys oo qaraabo aan nahay gurigana ka soo qaxay. dadka 3 qoys way ka koobnaayeen. dadkaas walaal waxay isugu imaadeen meesha gabaad bay guriga u soo aadeen, qol baa dadku wada galeen ay ku gabanayeen, qolkii ayagoo ku jiro xabadii dhacaysay iyo dagaalkii iyo wixii la soo wadaagsanay uga gabanaya ayaa waxaa ku dhacay gantaal ay soo rideen nimankii meesha isku dagaalaya qayb ka mid ah. gantaalkaasaa guriga ku dhacay, gurigu wuxuu ahaa guri dhagaxa, dhulkiisuna mutuleel yahay, halkaasaa dadkaas ku dhammaadeen. Kasokow qoyska Cabdiweli Maxamed waxa iyaguna halkaasi ku baaba'ay oo hal qof uusan ka badbaadin qoys ka koobnaa 6 qof oo isugu jireen hooyo iyo ilmaheeda iyo sidoo kale hooyadaasi sii dhashay oo waayeel ahayd. qoyskaasi hal qof kama uusan badbaadinin waxaana xaaladooda wax laga weydiin karaa oo kaliya dadka dariska la ahaa iyo sidoo kale dadka ka badbaaday madfacaasi ee ay guriga wada gabaadsadeen. Aadan Cumar Barqadle waxa uu ka mid yahay dadka ehelka u ah qoysaskaasi meeshaasi ku leeday. Wuxuu iiga warramay qoyskan ayaguna sida gaarka u baaba'ay. 3 qoys kor ahaan ehelka wada ahaayeen. qoyska baaba'ay waa qoys ka koobnaa 2 hooyo oo is dhalay oo hooyo ka mid ah ay hooyadii cidda dhan mas'uulka ka ahayd oo haysay isla markaasna qoyska dhan ayadu ay lahayd insha Allah Ilaahay uu maartay baa iska leh qoyskii iyada ay lahayd oo ay gacanta ku haysay hooyadeed iyo waxay ayadu dhashay iyo waxay hooryar u ahayd iyo waxay eedo u ahayd oo awlaad intiba ah. dadkaas iyaga oo 6 ruux ka kooban hal qof kama bixin, waxay ku baaba'een goobtii uu madfaca ka qabsaday 3 qoys oo dhammaystiran madar. Marka qoysaska kale wax u badbaadeen qoysaska qoys kamid ah qofba kama soo noqon. qoyskan isaga ah saasay ku baaba'een madar. Cabdiweli Maxamed Turmaag xaaskiisa Farxiye Cabdullaahi Caynab waxa ay ka mid ahayd dadkii yaraa ee ka haray gurigaasi 22 qof ay ku jireen ee madfaca uu ku dhacay. waxaan codsaday 2 cisho ka hor inaan wareysto hase yeeshee iimayl suuroobin oo waxay ii sheegeen dadka ehelka la ah inay qabtaan fariirka iyo naxdinta ka dhalatay markii dadkii ugu badnaa ee kula jira qol ee hal mar madfici ku soo dhacay ee ku leedeen. marqudeeda xaalkeeda caafimaad aan wax ka weydiiyay seegeeda Cabdiweli ayuu sidan iigu jawaabay. waan dareemaynaa murugo oo qalbigu waa madagana, hooyadii gabdhaha caruurta dhashayna waa wayna fiican tahay oo inay iska murugaysan tahay oo qalbigu aad meesha joogto iyada oo dhibkii waa ka dulnacay laakiin aniga meesha ma joogin. mar dhib fara badan baan dareemaynaa oo dadka miga waa dhamaaday oo awlaadna miga waa dhamaatay. dhinaca kale marka la fiiriyana waa ku samraynaa oo qadar Ilaahay wey. xaaladda adag iyo masiibada qoysaskan ku dhacday ma jirto ilaa iyo haatan cid qaadatay mas'uuliyadeeda.
iska badaaya ma jirto cid iyaguna sheegato mas-uul dowladeed amaba kuwo maamul oo si gaara haatan ugu soo tacsiyeeyey dhibaatada gaartay reerkan. dadka ehelka oo islaamka oo shacabka oo magaalada degan oo ama ganacsatada ah ama culimada ah ama bulshada noocyada kala duwan oo shacabka oo noo tacsiyeynayaan oo noo imaanayaan oo soo salaamayaan laakiin wax maamula iyo wax dowlada iyo wax nidaam ka socda maamul oo noo yimid midna ma jiraan. ugu dambeyntiina aaba Cabdiweli Maxamed Rumaag ayaa ii sheegay in haddii uu waayo carruurtiisa uu codsanayo in la badbaadiyo carruuraha kale ee Soomaalida ah isla markaasina laga baaqsado ayuu yiri masiibo sidan oo kale iyo dagaal haleelo saq dhexe haween iyo carruur oo aan iyagu waxba garabsan madaafiic habow ahna ay ku dhacaan. waxaan dhihi lahaa dadka iskaasaysanaya oo ummadda u geysanaya Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqeenoo dadka dhibka ka daayeen dadka maamulayo madaxda u ahoo laga soo bilaabo dowladda federaalka iyo inta ka hooseysana dadkooda shacabka ha u biran baan dhihi lahaa dadka dhiban oo dhib u gaarahayana dhibka ha la qaybsadeen. 30 sano ugu dambeysay Soomaaliya ay ka dhacayeen dagaalada joogtada ee dhinacyadu waxa ay saameyn xooggan ku yeeshaan dad u badan carruur iyo haween kuwaasi oo intooda badan aan ka barakici karin xataa goobtii ay ku noolaayeen marka madaafiic korkooda laga rido. halkan iga daawanaysiin waa wanaagga qoyska ala ugu barteen warka ugu dambeeyay fadlan hadaan subscribe saa u helna asxaab kale oo habeenkana ku wacnaado.